Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ma ogtahay in dadka taajiriinta ah ay hayaan sir aan dadka caadiga ah la wadaagin? Maanta waxaan kuu sheegi doonaa 5 sir oo noloshaada bedeli kara. Waa haddii aad ku dhaqaaqdid ama aad samaysid. Sirta koowaad waxbay maalgashadaan ima keydiyaan lacagooda. Dadka taajiriinta ah lacagtooda ma dhigtaan bangiyada oo keliya, waxay geliyaan ganacsiyo, stocks, real estate si ay wax kasta oo faa'iido u leh ay u sameeyaan, si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda, kobciyaan dhaqaalahooda. Waxay fahmaan qiimaha waqtiga waa lacag. Waad ogtahay daqiiqadii ku dhaafto sooma laabanayso. Halkii ay waqtigooda ku lumin lahaayeen wax aan faa'iido u lahayn, waxay diiradda saaraan wax kordhinta dhaqaalahooda, isla markaana sare u qaadaya horumarka noloshooda. Qodobka saddexaad waxay leeyihiin multiple income stream. hal il dhaqaale kuma tiirsana, waxay leeyihiin incomes fara badan, ganacsi, online investment, kaasoo ay runtii ganacsiyadooda ku horumarinayaan. Sidii horeba loo yiraahdo, kuma hal dambiil laguma wada rido. Taa oo macnaheedu yahay haddii aad mid ku khasaartay tan kale ayaad ka faa'iidi doontaa. Tan afraad, waxbay bartaan maalin walba. Waxay ka akhriyaan buugaag fara badan, waxay bartaan skills cusub, mar walibana waxay ku dadaalaan sidii ay u horumarin lahaayeen aqoontooda si ay u horumaraan. Waxay qaataan riski la xisaabiyey, ma cabsadaan, laakiin waxay qaataan go'aano la qorsheeyey, not riski waalan. Sidaas daraaddeed, haddii aad rabto inaad noqoto qof guuleysta, bilow inaad maantaba beddesho fikirkaagii hore. Follow garee si aad u hesho talooyin badan. Subscribe. Waad mahadsantahay.